waxaa waalidkaa u samaysid baarinimo ama ku samaysid caasi haddaa noqotid adduunyaa ku arkaysaa inta aakhare la gaaro. qisadeena maantana waxay ku saabsan tahay wiil yar aabbihiisa dhintay, hooyadiisa soo korisay. wiilkaas baarimuu noqona mise caasiyuu noqon doona. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ونالجوكتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة والبئيو قصة عصب. قصة دينا مانتو وحا لوبتي بيا لوبتي او اها ويلير او ابيه سدنتي هويدي سو كوريسي ري يوتيوب بقول سغاشن يلح قف ودا سو فود غريسي وحانا لوبتي بيا لوبت even though BEC واسكو دوايين فيسبوك 493 ايغانا بي وبتين لبا قف كليا لو ديرا انستغرام كان سيدو كله 193 سو فود غريسي بي أنا لوبتي سي بي وصار وحيرهم بقول حيس ما دام بي هل عد حتى ضوبتي بي أن قادنو أها ويلير أبي سدنت أسيو ير هو يدي سو كرسي ويل كسم باريو نقون دونا بس عاسيو نقون دونا سيفي عنو دقيس إن شاء الله كان فائديس وفائدوين كان سوق وحاجري جري فامل الحمد لله سيفي عن سجن نولاين ويل أبيه سي هو يدي س أبيه ويرنت أسيو يرنتي هو يدي سو كرسي ويلكي سكولو قلي markuu soo weynaaday wiilka markuu arko hooyadiisa oo dhibaataysan wuxuu go'aansaday inuu shaqo bilaabo. hooyadii waa diiday, way ku dhaaratay, way oysay, waxay tiri nafteeda waxaan u horay adiga waa inaan waxbaratida rabay, shaqo waxbarasho ka mashquulinaysa ma rabi jooji. wiilkii sidii ku joojiyay waxbarashada wuxuu ka saaray high school uu dhameeyay. markuu jaamacadda bilaabay hooyadii waa dhimatay. طبعا wiilkii adduunyada ku yaraatay oo hooyadii kaliya haystay way dhimatay. aaba ma uusan arkin basigoo yar uu dhintay. aad u walwalay wuxuu sameeyo garan waayay. jaamacadii ma wataa miyuu ka tagaa. kadib uu fikir wuxuu hooyadii maanta haday noolaaleed maxay jeclaaleed inaan wax barto. saddex go'aan oo aad u qiimo badan uu qaatay. go'aanka koobaad wuxuu go'aansaday inuu jaamacadii wado uu dadaalo oo number 1 noqdo maadaama hooyadiis ay jecleed saas inuu dhameystiro. go'aanka labaadna wuxuu go'aansaday hadduu ilaahay wax siiyo xoolihiisa 10% ama 20% number inuu hooyadiisa u bixin doono masaakiintana uu siin doono. go'aanka saddexaadna wuxuu go'aansaday sujuud walba inuu hooyadiisa ugu duceeyo. salaad walba farad ha noqoto ama sunno ha noqoto inuu hooyadiisa ugu duceeyo. wiilkii alxamdulillah jaamacadii wuu dhameeyay, shaqo fiican uu helay oo wax fiican lagu bixinayo. jaamacadii wuu dhameeyay. ballantii labaad hooyadiisa inuu lacag walba sadaqa aga bixiyo ballantii wuu oofiyay. tii saddexaad sujuud walba inuu hooyadiisa ugu duceynayo wuu waday. alxamdulillah xoogoo fiican markuu wuxuu go'aansaday marka inuu guursado. wax yar kadib ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku arsaaqay wiil yar oo aad u qurxan wuxuuna u bixiyay maxamed. waa soo weynaaday, wuxuu soo galay dugsi dhex uu soo galay. aabihiisu maalin walba raacay. aabihiisana alxamdulillah xoolo badan uu ilaahay siiyey. aabihii masaakiintu wax siinaya wuu sii waday. haddana wuxuu go'aansaday wuxuu yiri hooyadii sadaqa jaariya inaan u sameeyo. masaajid kastoo la dhisay wuu ka qayb galaa. haddana wuxuu arkay masaajidihii oo kuleel meel kuleel waa joogeen. masaajida kasta inuu talaajo oo yar oo biyo laga cabo inuu hordhigo. marka masaajidihii magaalada dhan uu fiiriyay masaajid walba talaajo hordhigay. alxamdulillah wiilkiisana waa u soo weynaaday, high school uu galay. maalmaha kamid asigoo socdo wuxuu arkay masaajid xaafadiisa agtiisa ku yaalo oo talaajo la dhigaayo oo biyana lagu shubaayo. aabihii aad u walwalay wuxuu yiri masaajidihii dhan waa dhigay, masaajidka diriskeyga ma dhigano waa hilmaamay. asigoo sidii u walwalsanoo sii socdo imaamka masaajidka uu yiri ya abu maxamed uu soo fiiro wuxuu yiri kaale jazakallahu khayran talaajada noo keentay waa ku soo duceynay. ninka wuxuu yiri talaajadii ma keenin yaa idin keenay. ma wuxuu yiri adanoo keentay oo sayidin kugu keenay ma dhigin haddaan ba arkay wiilkaaga maxamed noo keenay. wiilkayga keenay ha wiilkaaga keeno wuxuu nagu yiri aabaheeya soo dhiibay hana loo duceeyo. aabihii asigoo yaaban oo guriga yimid wiilkiisa maxamed uu arkay. salaamu calaykum. calaykum salaam. aabba talaajada markaas uu rahaa uu ku soo orday. aabihiis uu gacanta ka dhunkaday. wuxuu yiri aabba talaajada anigaa geeyay, adaana kuu geeyay, adaana sadaqa kugu bixiyay. waxaan arkay wax walbo inaa hooyada inaa u sadaqaynaysidaan arkay. anigana waxaan isdhahay aabbaha hooyadiisa u sadaqaynayo adina ma aabbaha u sadaqaysatid. aabihii marka wuxuu ku yiri waaye talaajada qaali waaye
lacagta halkee ka keentay maxamed wuxuu ku yiri aaba markaan dugsiga dhaxa ku jiray lacagta isiinaysi maalin walba meelaan dhigaaye lacagtan aan talaajada kusoo gaday 5 sanan aruurinayay lacag kasta isiisid meelaan dhigaaye markaa arkay inay ii gaartayne alxamdulillaah aan dhahay talaajadaasaan soo gaday adigaana kuu sadaqeeyay waxaan rajeynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ajirkaaga inuu ku siiyo saayeydii ugu ixsaan fashidne ilaahay subxaanahu wa tacaala ha kugu ixsaan falo ballan waa ana markasto inaan kuu soo duceeyo aabihii aad u farxay wiilkiisuu ku dhagay ilaa ka timid wuxuu yiri waa run aaba hooyadii wuxuu yiri nafteeda dhan anay isiisay shaqay ii diiday inaan shaqeeyo waxay rabtay inaan wax barto marka inta kaliya ugu yara uu qaban kara intaas waa ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto ayuu yiri ugu dambeyntii walaalayaal qisadan waa ujeedaan qiso aad u faa'iido badan oo aad u qiimo badan waaye faa'iidooyinka qaaraan soo qora adigana inta kala soo qor khayr allah ku siiye faa'iidada koobaad ilmahaaga tarbiyadooda waajib ku saaran waaye inaa adiga tarbiyeysid tustid wixii khayr ayaa loo baahan yahay hadda abu maxamed fiiri wiilkiisa markastuu hooyadiisa u sadaqaynay wuu kaxayn jiray wuu tusi jiray wuxuu yiri soo bax hooyadii aan u sadaqaynaa markuu u ducooynayo hooyadiisa inuu u ducooynayo wuu u sheegay cunugii marka waxaa galay sawir uu qaatay oo waalidka in loo ducooyo waalidka in ixsaan loo sameeyo sawirkaasaa ku dhagay maskaxdiisa galay asigana aabihiisa ayuu u sameeyay hadda example ku sii adiga maalin walba waxaa laga yaabaa qaraabadaada inaa lacag u dirtida laga yaabaa hooyada aabaha ayeeyda eedada ina adeerka ina abtida ama qariibka ina u dirtida laga yaabaa wili caruurtaada inaa kaxaysa ma tiri soo bax maanta hooyan lacag u dira soo bax maanta eedan lacag u dira soo bax maanta abtiyan lacag u dira ma tiri laan cunugii maba ogaanay inaan lacag dirtid in kalo qaraabada ma xiriirinayo hadaa laakiin tustid wuxuu ogaanaa qof ixsaan sameynaya inaad tahay ixsaankana inuu wanaagsan yahay dadka in la xiriiray inay wanaagsantahay ayuu ogaanaa bar ilmahaaga hadda intay kula joogaan faa'iidada labaad caruurtaada magaca u bixinaysid fiiri magac wanaagsan oo uswa leh u bixi oo dayasho leh magacyahan cusub oo la garanaynin meeluu ka yimid buuga la kala furaa magacaa soo baxay oo la garanaynin xasrah qof loo bixina xasrah shalayta waaye ama magacaan la garanaynin loo bixinayo magacyo wanaagsan loo bixiyo saxaabo magac saxaabi u bixi magaca nabiga u bixi magac dad wanaagsan sidoo kuugu wanaagsanaado u bixi maxamed cabdiraxmaan cabdullah magacyo wanaagsan u bixi salafkii hore saxaabadii magac ilmahooda magacyada ambiyadii u bixin jireen qaar waxay u bixin jireen dadka wanaagsan u bixin jireen ilmahaaga magac wanaagsan u bixi faa'iidada saddexaad baari u noqo waalidka ixtiraam waalidka waxay rabaan sameey ayagoo nool iyo markay dhintaan kadib cabdullaahi ibn cumar maalin nin ribaadiya u yimid markaasuu salaamay markaasuu yiri aabaha saaxibkiisa ahaan jiray cabdullaahi ibn cumar ninkii farastiisii iyo xoolo dhan uu siiyey asxaabtiisa ku tiri ardaydiisa ku tiri yaa cabdullaahi ibn cumar ninkan ribaadiya waa hadda hal wax siileed oo ku filnaa lahayd markaasaa wuxuu yiri waxaa maqlay nabi maxamed ku sallallahu alayhi wasallam oo dhahayo inna abarra albirri qof waxaa ugu baarisan qofkii xiriiriyo waalidkiisa saaxibkiisa aabba kaliya ma ahan aabbaha asxaabtiisa inaa xiriirisid xataa waa loo baahan yahay markay dhintaan in faa'iidada afaraad waalidka u ducooy nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam markii la weydiiyey wuxuu yiri qofka markuu dhinto camalkiisa waa go'a waxaan saddex ka ahayn mataqaanay waxaa ka mid waladun saalixun yadcuu lah cunug wanaagsan ama wiil ama gabar wuxuu raba ahaado oo u ducooya waalid faa'iidada shanaad waalidka sadaqa u bixi sadaqa hadaa bixinaysan sadaqa jaariya u sameey sadaqa socoto u sameey sadaqada halka maalin kaliya maahan nina nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam uu yiri yaa rasuulallah hooyadii waa dhimatay haddii joogtana way sadaqaysalee ma u sadaqeeya markaasuu wuxuu yiri rasuul sallallahu alayhi wasallam haa u sadaqeey wa calayka bilmaa biyana u sameey ninkii marka hooyadiis ceel ayuu u qoday oo sadaqa jaariya u noqoto faa'iidada lixaad iyo tan toddobaad sideedaad sagaalaad iyo tobanaad adiga soo qor khayr allah ku siiyo jazakumullahu khayran barakallahu fiikum wa inuu jumcada soo socoto iyo qiso cusub. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.
لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله